maanta waxaa idiin wadaa 5 calaamadood oo lagu ogaan karo gabadha inay wiil kale xiriir leedahay. Okay, inta muuqaalka sii gudagalin page-ka follow soo dhaha video-gana like noo saara. Soo dhawaada ragow, waxa u baahanaa maanta inay idin la wadaago sir muhiim ah. Sirtaasna waxay tahay qaab ugu fudud ee lagu ogaan karo gabadha xiriirka la dhaxeeyo adiga kaliya ku koobantahay mise qof kale xiriir leedahay. 5 calaamadood ah hore idin ku soo sheegay oo lagu ogaan karo gabadha inay wiil kale xiriir la leedahay waxay tahay qodob koowaad mar walba aa wacdo ma haleeleysid hadaa wacdo mar mashquul waaye mar telefoonka ma qabanayso mar waa jirinay ku leedahay cudurdaar joogta ay keenay. qodobka labaad ee lagu ogaado gabadha inay wiil kale xiriir la leedahay wuxuu yahay way carab badan tahay mar walba waa qof mar walba kugu xanaaqayo marka la hadasho tiraadid maxaa kugu dhacay telefoon maxaa iga qaban weyday maxaa i soo wici weyday si aadan u dareemin in ayda xiriir kale qof la leedahay ayda kugu xanaaqayso si aad ugu mashquulshid xanaaqaas mar walba waxa sameynay buuq joogta xanaaq joogta si ay kaaga mashquuliso in aad dareentay waxa ayda ay sameynayso tusaale telefoonkeeda kala marka dhowr jeer wacdid ay ka qaban weydo ay markay ka qabatay maxaa telefoonka intaan iga qaban weyday way xanaaqay buuq la iimaanay hadalka meel uu jirnay gaarsiinay heer ee xanaaq iyo aamusnaan ay raadido si aadan u dareemin waxa ay ku mashquulsan tahay macna ileen waxay ku dhahdo maheedo Soomaaliya waxa ku mashquulsanaa sababta ay buuqaas iyo qeyladaas dhan ay u galeysana waxay tahay qofkaas kale xiriirka ee la leedahay si aadan adiga u dareemin. qodobka saddexaad ee lagu ogaado gabadha inay xiriir kale qof la leedahay wuxuu yahay cudurdaar joogto ah. gabadha marka aragtid inay mar walba cudur daaranayso oo tusaale marka wacdi xukula telefoonka maxaa iga qaban weyday dad rajaajir ku jiray waa mashquulsanaa hoolahay maxaa igu soo celin weyday hooyo wax i dirtay iyo intee ka dhacday iyo waxa loo joogin mar walba waxa aad weydiisid baa cudurdaarka ka keenay mar walba waa mashquulsanaa waa xanuunsanaa familkaasaan ahayn. qodobka afraad ee lagu ogaado gabadha inay xiriir qof kale la leedahay wuxuu yahay mahsanaan fara badan maanta hada u sheekeynaysid hada mustaqbalka sheekaysanaysid hada sheeko caadi ugu sheekeynaysid hadalka aad u sheegaysid ma ku socdo ilaa waa qof meel kale ka wacan oo dad kale la sheekaysato adi dhanba kuma aragto hada maanta dhan leedahay ay maxaa sameynaa maxaa nolosheena ku soo kordhinaa maxaa wax ka bedelnaa ayadu ma joogtaba waa iska mahsantay hada dhaadid soo saas kuma maalin soo hadalkaas kuma dhihin ma ogo waa qof iska mashquulsan oo si kale u mahsan. qodobka shanaad ahna kan ugu dambeeyo ee lagu ogaado gabadha inay xiriir wiil kale la leedahay waxa waaye daneen la'aan wax daneen ay xaggaaga ee ka leedahay ma jirto hada maanta dhan mustaqbalkiina noloshiina uga sheekeynaysa dhanka ma lahan daneen la'aantu waxay tahay qofkan hada u xanaaqsan tahay hada u faraxsan tahay asiga iskugu mid hada xanuunsan tahay hada caafimaad qabtana iskugu mid hada maanta tiraadisaan maxaa waaye wax u sheegtid asiga in la hadasho in kale ma ogobo ma ku daneenayo kuma soo jeedo meel kale ku maqan tahay dhan sababtaasna waxa keenayso adi dhan badanka ma lahan oo dad kale xiriir la leedahay adi mustaqbalkaaga iyo noloshaada dhan baada meesha ku daalinayay ayadu way maqan tahay waa qof danaheeda kale ku maqan adina ina caafimaad qabtay ina farxad siinaysid ina murug siinaysid intaba danaheeda ma aha waxaas.